وهي عيدا كاسونا بيشا سيدا سويسور فرديي لبا jeer buu dagaal dhacay bara saabka iyo maayarka iyo mas'uuliyiinta nabadgelyada oo dhan way yimaadeen haddii baydankeeda leeyahay ciidankaasu isagoo dagaal subaxa ka dhex dhacay intay u yimaadeen bay ka noqdeen subaxii labaad guud ahaanba gobolka Togdheer iyo deegaanada hoos yimaada gabi ahaanba waxay maamulka gobolka Togdheer joojiyeen deegaameysiga cusub haddaba deegaanka aroori ee daaraha Ilmashiikh oo ah deegaan fac weyn oo daaraha Ilmashiikh ay muddo qarniya ay deganayeen ayaa waxa laga bilaabay deegaameysi cusub iyadoo dhowr jeer ay cabasho kala duwan ka soo yeedhay deegaanka aroori iyo deegaameysiga cusub ee laga bilaabay ayaan ilaa iyo hadda aanay maamulka gobolka Togdheer waxba ka qabanin qaar ka mid ah odayaasha iyo waxgaradka deegaanka aroori ee daaraha Ilmashiikh ayaa waxay ugu baaqeen madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland wasiirka arrimaha gudaha iyo cid kasta oo arrinta wax ka qaban karta in si degdeg wax looga qabto muddooyinkii u dambeeyay waxa deegaanka aroori isku horfadhiyay laba ciidan beelad oo ilaa iyo hadda aanay jirin waxay ka qabatay xukuumadda Soomaaliland odayaasha iyo waxgaradka deegaankaasi ka hadlayna waxa hadalladoodii ka mid ahaa sida tan Togdheer gaar ahaan Ilmashiikh meeshay deegaanka ku ahaayeen ee magaalada ahayd ilaa muddo gaadhaysa 150 sanadood ay yaaleen waxa ku soo duulay oo ku soo guuray niman deegaankoodiina wata hubkoodiina sita waxa dhibta nabadgelyo darrada ay ka taagan tahay muddo imika bil gaadhaysa mas'uuliyiinta nabadgelyada gobolka Burco marka laga reebo taliyaha qaybta ee imika muddada dhaweyd la keenay hawlgalkiisana ay shalayto ay ugu horeysay intii taalkiisa ahayd si fiican ayuu u gutay waajibaadkiisa isagoon wax fulina samaynin ciidamadiina ay sidii soo hor fadhiyaan nabadgelyada waxa gacanta ku hayay odayaal dhaqameedka halkan jooga ee deegaankan Ilmashiikh oo qura ayaa dhinac iyo nabadgelyada gacanta ku hayay ciidankaasuna bisha sidaas uu horfadhiyay laba jeer buu dagaal dhacay bara saabka iyo maayarka iyo mas'uuliyiinta nabadgelyada oo dhan way yimaadeen haddii baydankeeda leeyahay ciidankaasu isagoo dagaal subaxa ka dhex dhacay intay u yimaadeen bay ka noqdeen subaxii labaad oo haddana ka dhacay bay ku soo noqdeen haddana sidii bay kaga tageen inta annaga waxa noo dheero gaara nin walba waxa la yimidida dhufantaa gurigiisa ay taallaa xoghayaha fulinta degmada oo ciidankayagii na kullidiya oo geedkay tagaanba ugu imanaya isagoo adeegsanaya oo oranaya aniga ayuunba hadli kara awood leh cid kale juuq ma oran karto Ilmashiikhna ana metela Ciise Muuse ana metela waa go'aankii 12aad ee uu nagu fuliyo kan ee aanu u tirinayna isaga iyo mas'uuliyiinta nabadgelyada ee gobolka Haruu joogtay iyagoo iska kaashaday arrinka deegaankii aanu naalay waa halkii ayna laga baabiyay annaga mooskii aanu marinay ee ay naga baabisay wasaaradda deegaanka oo aanu u tirinayno in ay tahay cidda iminka meesha la dejiyay inay isku cidii waxaanu leenahay haddii cadaalad jirto oo islaamnimo jirto oo mas'uulnimo jirto sida aanu sheegana weey anana raali kama nihin oo mana ogolin meeshii annagana laga qaaday ee leeyahay waa danguud iyo daaqeen in cid kale ay degto oo la siiyo ay la maaragtii la maqasho tahay calaamad baa taalay moosas bay lahayd waa la baabiyay cidii lahaydna ciqaab aad u kulul baa la mariyay cidii lahayd calaamadda ciqaab aad u kulul baa la mariyay bilay xidhnaayeen waxa laaliyo wax lagu lahaana ma aani jirin ka soo waadadii waxa la dejiyay beel laga soo ruray xadka meel ka shaysa ugu yaraan ilaa 7 kilomitir shacabkii meesha wala markii uu kacay dawladda gobolka ka mas'uulka bara saabka iyo goob saabka maayarka xoghayaha shanta nabadgelyada dhammaanteedba way yimaadeen markay yimaadeen ummadda waxay maqashiyeen islaamka hayda meesha iskugu timi inaan wax ka qaban doono waxa laaliyo wax laga qabtayna ma jirin dawladdii dhaxana
halkii aan ruslayn waabay degaysaa way yeegaysaa wada bari baa la mariyay waxba baan ka jirin hawd baa laga soo wareejiyay ka soo waadadii intaasi markay dhacday dhawaaq baa dhacay waxa la yiri labada magaalo tuulada iyo laba kala laasii saddexdiiba xilliga midnaba aqoonsi ma leh inta cid baa iska leh maanta sabarka uu ka dhamaado dubu samri mayno waxaan ku idin sheegaynaa gobolkan Burco timira tuugta dawladdu soo dirtay oo ma soo dirtay dadka caadiga daalimiinta de cidun bay ku taagantay cidun bay ulayska saaraysa waxaan idin sheegaynaa nimankaana hala naga soo gaaro